Okay, so عشان كان حكوا سبسين business manager أو معنا business ad account marka waxa laga yaabaa xogo inaan fahamsanayn ama aad fahamsantahay ama aad ku wareertaba haddii wax yar aan sharaxo facebookkaaga adiga oo aad ku furatay emailkaaga oo emailkaaga.com ama emailkaaga @gmail.com aad ku furatay iyo numberkaaga waa your personal Facebook waa kaas every personal Facebook number wuxuu leeyahay ad account oo macnaha Facebook kasto loogu talagalay oo ad accountkaasna marka waa your personal ad account marka page marka samaysid marka dadku waxay isku qaldaan page-kaaga ad account-kaaga Facebook-kaaga business manager-ka wax maxaa u dhaxeeya difference maxay business manager-ku waa business-kaasna macnaha waxa laga wadaa you can have ad account fara badan wax dhex furo kartaa business-kii maadaama adiga Facebook-kaaga loogu talagalay bis hal ad account oo built in oo leeyahay oo every Facebook personal Facebook oo leeyahay hadduu kaa xirmo hawada gashay xaalka ma fiicno waxa waaye Facebook kale inaad raadisid marka maadaama taas inay nagu dhacdo aan rabin waxaan sameynaynaa marka meeshan aan ku sameysanaynaa waxaan tegaynaa business.facebook.com ama google tag business facebook ku qor ama facebook business ku qor saarid u qor adiga waxa u baahan tahay business.facebook.com marka faa'iidada iyo benefitskiisa wuxuu yahay macnaha you can have more than one other account oo inta soo other account multiple other accounts inaad sameysan kartid marka intaas muhiima macnaha that's why ugu baahna marka create leedahay create marka ku dhufatid waxaad gelinaysaa your email oo Facebook ah hadii hadda aad isticmaashid emailkiisa gelinaysaa kabacdina passwordka gelinaysaa mrbossless@gmail.com that's my email so haddii aan gelo meeshaas geliyo macnaha sana hadda inaan create gareeyaan rabaa maadaama oo Facebook-an uu yahay Facebook brand new waxaa laga yaabaa inuun ii ogolaanin laakiinse isku dayayna insha Allah taala arkayna marka create okay maadaama aan galay create aan ku dhuftay kadib waxaan weydiiyay magaca adiga aad rabtid marka haddii aad tahay qof rabo inuu sameeyo marketing oo macnaha xaysiin suuqgeeye ama suuqgeyso oo macnaha la shaqeeyo ganacsatada ka caawiyo qaabkii ay suuq ay ku qabsanaayeen ay wax ku kala kacsalaan ganacsigooda oo macnaha ganacsi oo caana marka marketing oo sidaan oo kale oo ganacsatada caawiyo kale oo consultancy iyo wax warba sameeya ma xaysiimo wax yartaate shaqeedatay oo agency oo Facebook ad account business oo baahan tahay marka hadii lagu dhaho kale ka soo xaysiiyo kale wax yarba lagu dhaho ama suuq laba xadiga magacaaga oo company-ga kadibna email aad ogtahay inaad jibgarinaysid kaba soo qaadada haddii aan isticmaalo mrbossless@gmail.com your business email address waa inaad business email address-kan waa inuu ahda email aad jibgarinaysid oo ogtahay inaad jibgarinaysid macnaha hadda marka suuqgeeye waxaa laga yaabaa inaan u baxsho Mr. Bossless la baxa laga yaabaa oo businesskayga aan ka dhigaba Mr. Bossless ama magaca markaas aan ku shaqaystaan rabo oo kale ama ganacsigayga haddaan ahay dentiste sida aan badanaa dentiste aan example ahaan aan u isticmaalo kale haddii la dhaho kale ilka caddeeye oo ganacsigayga la dhaho kale ganacsigayga magaciisa aan baxsanaa oo macnaha business aniga aan leeyahay uu yahay oo la baxaa because way fiican tahay inaad business ad account ahaan u furato marka samida hadda aniga Mr. Bossless aan baxshay haddii la haysto waa la haystaa magacaas waa la haystaa ku leeyahay sometimes macnaha uu socodsiiyaa oo ma kala jeclo marna waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho oh sorry you can't have it because hore u samaysay waxaa leedahay business account kale hadda ma lagu ogolo ku leeyahay sida hadda aniga inuu dhahan ka cabsanaa because Facebook-gan wax yar ayuu furan yahanba macnaha so marka business account kale aan leeyahay oo ka nuuc marka maadaama oo business account-kaas dad badan ay ku xiriin mar rabo marka in information badan aan meesha soo geliyo oo ka nuuc marka waxaan rabaa qofkii inuu sida hadda aan usoo bilaabi karno aan isku soo wada bilaabnaa rabaa macnaha marka hadda marka waa kan waxaa weli ku dhagan page-ka hadda ayaan sameeynay haddii aad ku dhufatid oo kale more oo aad
معناها setting oo kale aad tagtid kow horta billingkaas oo kale inaan sameyno oo lacagtii aan ku xirno taasaa muhiima waxaan kaloo sameyn karnaa in aan baxno meeshaan magacayga ku dhufto kadib aan ku dhufto ad accountka hadda aan sameynay business accountka aan sameynay and then kadib aan ku dhufano go to business account setting ama switch saadi macnaha markaas aad leedahay waa sameyn kartaa okay so hadda marka maadaama meeshaan joogno meeshaan una keenay marka waxaan rabaa waxyaabo yar oo aad iyo aad muhiim u ah inaan taabto oo kow ay kamid tahay horta se macnaha loogu daraa qof kale business accountkan haddii aad rabtid inaad macnaha qof kale kusoo dirtid oo qofkaas aad isla shaqaysatiin ama ay tahay qof oo macnaha adiga kuu shaqeeyo oo aad rabtid inuu macnaha ahaado advertiser macnaha oo employee access ah oo kuu shaqeeyo marka waxaan dhahaynaa oo kale kaba soo qaad caligedi@gmail.com oo kale aldhaa qofkan example waaye waxaan rabnaa qofkan inuu ahaado qof oo admin access haysto oo macnaha ama employee access oo bis wax yar oo macnaha bedeli karo laakiin admin haddaasi sidoo kale macnaha full wuxuu haystaa access oo macnaha xaysiintu create garay karaa analysis ku sameyn karaa wuu xiri karaa wuu soo bilaabi karaa marka that's how you add qof saas ugu dari kartaa wax yar overview quickly inaan ku siiyaan raba macnaha waxaa soo haray ad accountku macnaha hadda waxaa waaye meesha hadda ad accountka aan sameynay oo macnaha meeshan aad marka meeshan waxaa ku qoran Mr. Bossless doesn't have any other accounts so waxaad dhihi kartaa marka create ad account ama waxaad dhahaysaa add new ad account oo hadda aad macnaha aad ku daraysid oo horu sameysanaay ama kale request ad account oo qof kale ad accountkeeda inaad kusoo dartaa rabtaa so hadda aniga haddaan dhahno review macnaha haddaan dhahno kale ad account cusub sameey oo hadda aan sameyno step by step aan sameyno waxaan dhahay oo kale Mr. Bossless ad accountkiisa waaye London okay lacagta muxaratayna ka dhigatid currency-gan hal mar ayaa haysataa waxaan inaad sameysid kadib waxaa laga yaabaa inaad bedeli weysid marka maadaama aan joogo pound aan ku baxsho waxaan rabaa inaan ka dhigo US ka dhigi karaa ama kale waxaan ka dhigi karaa British pound sterling kan ka dhigi karaa so haddii marka next dhaho markaas wuxuu leeyahay businesskan iska taabo create waxaa laga yaabaa inuu yes dhaho oo ii ogolaado ama inuu diido sababta igu ogolaa ama igu diidayna macnaha waxaa waaye because ad accountkan waxaan furay businesskan waxaan furay sorry Facebookan oo Mr. Bosslesska wuxuu jiraa baa sidhan 2 week macnaha da'diisa ay rankooda marka Facebook wuxuu ma jeclo marka uu da'da yartaa inuu macnaha so hadda marka wuxuu weydiinaa dad ku dar ana inaan isku soo daro marka maadaama ay tahay Facebook marka oo macnaha business account uu yahay business accountkaas waa inuu yeeshtaa inaad dadka kusoo darto waaye haddii aad page lahayd pageka inaad kusoo darto waaye haddii ad account aan lahayd ad accountka inaad kusoo darto waaye ama aad create garayso adiga inaad iskusoo dartid waa maadaama macnaha ka gaar yahay oo macnaha dalad weyn uu yahay daladaas marka inaad soo gelgeliso waaye facebookgaagii dadkii kula shaqeynayay saas aad soo gelgeliso so marka hadda assign aan leeyahay okay waa ku daray add payment uu dhaa marka hadda marka add payment wuxuu ii leeyahay waxaa waa because Facebook wax kale looma furin Facebook in lacag sameeyana loo furay so marka paymentka markaan ku darayna insha Allah waxaan rabaa hadda inaan ku sameeyo wax la yiraahdo page-ki marka hadana Mr. Bossless doesn't have any page so add new page ama create ama request so hadda add hadan ku dhufto meeshan aan ku qoro magaceeday aan page u bixino waxa waaye malaha Jebron so wakaas Jebron soo baxay okay add Jebron soo dar so hadda marka Jebron hadan ku soo darno Jebron haysanaa ku ad account waxaan haysanaa Mr. Bossless ad account haddii aan rabo ad account kale inaan create gareeyo mid cusub waa create gareey karaa saas aan u create gareey karaa so marka waxyaabo oo waxaa jiro marka cashiradan oo aad iyo aad muhiim u ah oo inaan cover gareeyno oo businesskan ku saabsan koo horta waxaa ku jiro kale kamid ah cashiradaas inaad ku dhufatid business information meeshan haddii aad Soomaaliya joogtid
انت بوبوحي كرتي بوبوحي meeshaan fiiri bal markaas haddii ku dhaho hadda waxaa xaq u leedahay hadda aniga xaq u leeyahay one other account ka badan xaq uma leeyahay laakiinse haddii aad si kale u fiiriso waxaan haystaa laba other account kan iyo waxaan haystaa iyo kan oo my personal oo sida aan ku sheegay personal pageku macnaha personal facebooka mar walba wuxuu leeyahay other account u gaara oo siga ku dhex dhisan uu leeyahay so haddii saas loo fiiriyo laba other account haddasaan ku haystaa laakiin haddii aan magacayga meeshaan geliyo aan buubuuxiyo informationkayga meeshaan geliyo kaba soo qaad business number iyo waxaan haystaa business verification code oo kale haddii aad fiiriyo sidoo kale business verification code macnaha waxaa waaye in aad tahay qof businesskiisa uu shaqaynayo oo kale hadda fiiriya kan cashiradan inaan ku furgarayaan isku dayaa oo step by step aan sameeyo very important waaye waxaa kaloo important pixelkan oo kale website-kaaga markaa ku diraysid oo track garaynaysid qofka website-kaaga imaaday meesha uu ku dhuftay meesha uu tegay thank you page ma tegay waxyaabahaas oo dhan step by step aan samaynaynaa laakiin hadda waxaa muhiimka ah bis inaan wixii aan set up garayno waxaa kaloo jiro brand safety-gan oo kale waa very important waxaa ku dhufanaysaa domainkaas oo kale added domain so hadda kala soo qaadi www businesskaaga ama ganacsigaaga.com magacaaga oo ganacsigaaga adaa taqaanid so ganacsigaaga.com oo kale aad tahay meeshaad ku dhuftay oo ku dartay markaa ku dartid hosting company-ga oo ku sameeyo aad u tegaysaa kadibna meeshaasaa soo gelinaysaa kadibna macnaha step by step aan sameynaa waxas dhib male marka cashirka inaan ku daaho intaan ugu soo gaara ma rabo Facebook maadaama ay ii ogolaadeen in business account-kan uu furmo oo thank you Facebook so cashirada si fiican kan ugu qaadan karnaa marka waa kaasaa cashirka ku xigi doono wuxuu noqon doonaa business account-kan oo step by step aan dhexgeli doono sababtoo saacadda hadda la marooyo iyo waqtiga hadda la marooyo waxaa soo baxay waxa la dhaho iOS 14 oo Apple telefoonka Apple ay kusoo direen update-ka oo Facebook ku qasbay in advertiserska ay sameeyaan another step oo marka hore waxaan sameyn jirnay oo pixelka oo kale qofka cookies aan track garay jirnay oo retargeting waxa la dhahay aan sameyn jirnay qofka dib xaysiin u tusi jirnay oo maanta dhan daba socod jirnay oo meeshay tabaan aan ka daba socod jirnay laakiin iOS 14 waxay sameeyeen waxa la dhahayo in macnaha qofkii uu xaq u leeyahay oo markii uu xaysiinteena arko oo ku dhufto page markuu tago iOS 14 ay dhahayso waxa la dhahayo diiwaan qofkan inuu ku taragareeyo oo ku daba socdo oo macnaha aad u noqoto customer oo meel walbo tagtid oo xaysiin ku tusi karo haddii aad dhahdid yes qofkaas macnaha waxa waaye waxaa kamid tahay customerka oo pocketkiisa ku jiro oo jabka ugu jiro oo wuxuu raba ka geli karo haddii aad noo tiraahidna waxa waaye waa tiri saas camal marka maadaama ay taas soo baxday oo bishan hadda lagu jiroba dhexdeeda la bedelo waxaas marka waxaan ku tusaa marka qaabka ugu fudud oo waxaas loo samaysto adoon isdhibaynin step by step oo sameeynaa oo adigana pixelkaaga ay u kala kacayso oo macnaha qofkii aad u taragelay kartid wax weynna ma ahan si khaldan ha u fahmin marka cashirkan inuu intaan ugu soo gaaray ma rabin oon ku dheeraado ma rabo inaad macnaha kor hurdo marka waa kaas cashirka ku xigi doono wuxuu noqon doonaa step by step oo cashirka wax ku saabsan businesskan aan ku kala saari doono insha allahu tacaala marka waa idin salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu